السلام عليكم وعن صاحب يال marka ku soo dhawaada YouTube channel keena iyo waliba Facebook maanta waxay suurto gashay inaan soo qabtay mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee caanka ka ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool South Africa kuwada caanka ka ah isla markaana in badan ka hadla xaaladda Soomaalida South Africa haddii aad South Africa joogto isla markaana baraha bulshada ku jirto gaar ahaan TikTok iyo oo aad tiraahdo ninkan ma garanayo suurtagal ma ninkan waxa kamid ah dhalinyarada ugu caansan South Africa gaar ahaan Cape Town saaxiib marka hore bal soo dhawow adiga oo dadka isku sheegaya bal aadan waa dhawahay aad u mahadsan tahay horta waxaan kamid ah dhalinyarada South Africa ka xamaalato kuwooda ugu caansan marka baraha bulshadana waa iskaaga jira oo TikTok-gan marka mar walba waxa ka hadlaa xaaladaha South Africa iyo dhalinyarada macnaha lagu soo siro iyo dhibaatada meesha taalo iyo rafaadka yaalo intaasaan ka hadlaa saaxiib aad iyo aad ugu mahadsan tahay maanta waxaan rabnaa bal inaan ka hadalno ama ka wareysto dhowr su'aalood oo ku saabsan xaaladda waddanka South Africa inta badan waxaa jira dhalinyaro ku xiran baraha bulshada isla markaana wax naga weydiiya xaaladda waddankan saaxiib South Africa dhalinyaro badan oo ku soo haminaysa ayaa jirta maanta oo la taagan yahay 2023 marka uu dhalinyaradaas tusaale ahaan adi ahaan maxaa tal ku sii lahayd bal waddankan xilligan inuu munaasib yahay in la yimaado 2023 iyo in kale horta aadan su'aashaada waa su'aal aad u muhiim ah su'aal aad u fiican waaye horta aniga saasdahay aan ahaanteeda hadaan ka hadlo dhalinyaro badan oo arko waddankan ku dhibaataysan aniga qof Soomaali joogo oo alyoomkiisa iyo wixiisa helaayo ana waxaan dhilaal yoomkaaga hada heliso South Africa alyoom wax ka badan ma lahaniyo meeshan waxa lagu shaqeeyo waa $350 $350 adoo xamar joogo bajaaj qabsaday oo naagtaada iyo hooyada iyo familkaaga ka soo akacayso ayaa ku heli kartaa meeshan marka timaado South Africa oo dadka macnaha dukaana lagu xirayaa dadka macnaha aad macnaha wax ka gadayso oo customka dad wanaagsan maahan dad isfahmi kartiin maahan diiniyan iyo dhaqan wax walbo marka waxa ku qasbantaa marka meesha imaado in aad dhibaato badan aad la kulantay dhibaatada maxaa ku ah macnaha inaad markaad waddanka imaanayso luqadda Ingiriiska aqoon kaleeto inaad luqadooda aqoon kaleeto wax lagu gadaa kale customka markay ku arkaan inaa qof cusub too kaleeto inay dhibaato inaa kala kunta laga yaabo booskaaga dukaanka iska laho kaleeto asi naftigiisa inaad macnaha dhibaato kala kulanto marka niyahow aan waxa dhiilay waddankan hadda xilligu fiicnaay 2010 12 2006 xilligaas ahayd laakiin hadda South Africa sharcina ma helaysid shaqadan hadda cariir waaye sideeda kale rafaad iska taa marka aan dhalinyarada waxa kula talahay hadii $300 oo waddankaaga ku helaysid Soomaali iska joog dadka meesha jooga dhalinyarada meesha ku dhiban waan gartay waxaa jira dhalinyaro badan oo runtii talo midaas lamida aan siina maalin walba balse ku adkeysanaya inay waddanka yimaadaan nasiibkooda ay tijaabiyaan tusaale ahaan waddanka marka la yimaado qofka Soomaaliga waddanka markuu yimaado shaqada ugu horeysa ama shaqada ugu fudud oo heli karo waa shaqo noocee ah macnaha wuxuu qabanaa qofka markuu ugu horeyso yimaado waddankan horta aadana wadaan macnaha xaqiiqda laga shaqeeyo meeshan Soomaaliyeed badan waxay ka shaqeeyaan locationada laga shaqeeyaa tuwaaka lagu gadaa nyaanya la gadaa waxyaalahaas la gadaa food waxay dhahaan dadkan raashinkaas la gataa wax kale oo la qabto ama xafiis la fadhiisanayo amba ma ahan meeshan ama magaaladaasna waxa waaye waa saaku shacariiri in nafteedu waa dib kaleeto marka niyo waddankan aniga qof oo walaalkeeya ma kula taleen waddanka yimaado maxaa ila dadka waddanka joogo waxay taagan yihiin inta ugu baxna inta aana waddankan aad saalo kaleeto animi aaminaysi 4 sano waddankan jooga 4 sano xamaalanay wili hal mar ma jiifanin subax walbaan ku xooyaa habeenkii waxa waqti dambe jiifanaya hadana maanta 4 sano anoo joogo maanta hadaa ku dhowrniyo maanta ay tiraahdo juftaa waxa meel ku yaalo wax iyaal ma lahan 4 sano ilmo ma dhalin awlaad ma dhalin cibaado kuma jirin sharci waddankan oo maanta oo sharci dadka isiinayaan citizen oo maalba lagu aadi karo malahan hal qaxootiyo baasaboor xun qaxootiyo sharci xun qaxootiyo ku siinayaan oo asiga lacag hadare marka
qof dhalinyaraha waddankan aniga wallaahi iyo billaahi tallahi kulama talle inuu soo Afrika yimaado hadduu dhalinyaro yahay ninka odayoo ilmihiisa ka korsaayo waa korso kari caadi waay ninka odayoo ilmihiisa ka korsaayo caadi waay laakiin waddankan nin dhalinyaraa wuxuu ku ridaa cimri degdeg waxa lahaynio bidaara ku gelayso oo degdega adoo nin oo maaragtay dhalinyaro caloolaa kaa soo baxayso socodka waa ku dhibaa faad marka nin oo waddankaas saxaabkeeyo waddan qof binaadam kulama tallahayn waan gartay dhalinyarada waxaan rajaynayaa muuqaalka inay maxaa la yidhahdaa wax badan ay ka fahmi doonaan inkastoo qofka Soomaaliga ah ama Soomaalida warintu ay yihiin dad macnaha madax adag oo qofka markuu hadlayo ma ahaan macnaha wuxuu ku hadlayo maan wax kale hadalkiisa kala dhaxbaxa haddana kulay arrintan waa arrin jirto waddanka South Africa ka jirto su'aasha kale oo aan kusoo gabagabeeyaa waxay tahay tusaale ahaan qofkii talada maba qaadan waa uu yimid qofka Soomaaliga ah markuu yimaado locationadaas uu galo mushaar ahaan marka la yiraahdo qofka mushaarka ugu badan qofka Soomaaliga oo shaqaalaha uu ku shaqeyn karo waa imisa wallaahi ni oo hadda shaqadii abalaayaba shaqadii caadiga abalaayaba adii mushaara ba ka hadlay inaa hurudo waxa qoray inaa riyood inaa hurdaa qorays baraad shaqadii abalaayaba dadka ku soo bateen baladki sharciga dawladda South Africa dama dhiibeyso waddankan qofka ugu fiican oo macquulka oo nin oday wala sadaayo qaab qaraabanimo xitaa $400 sina amba 350 waa qofka ugu badan waay haddana niyo waddankan xilligu ficnayna hadda lagu ma jiro niyo xilli baa badila wax lagu qodaa hadda fargeeti iska dhaafay gacantii afkaas la ma fahanto baraad marka niyo aan qofka dhalinyaro oo mustaqbal waddankan isku imaanin baraad dad waxa jira dad waxa arkaysa dhalinyaro badan waxa arkaysa waddankan joogan qaar horta way ka jaanisay waddankan laakiin inta badan way ku qasaareen waddankan dhalinyaro badan waxa arkaysa la soo diray waxa arkaysa 15 sano 20 sano joogan haddana sharciga wax dhalin ayagoo yaro 15 jiraha soo galeen aadano waxa arkaysa man daarta odayaal oo qabtay inaad 40 sano gaaray ya amba soo 16 sano jiro waddankan soo galay 40 ku noqotay hadduu wax dhal soo korina qaab ku korina haddana oday waay lacag meesayo nin dhalinyarada waa dhaafiyay soo dhimaahan marka niyo waddankan sharciga lagu haysto nololna ma taalo aragtay nolosha gulkashka waa aragtay dhibaatada leedahay marka niyo aan qof walaalkeeya waxa dhilaayno da xamar wax kugu soo galayaan niyo xamarta isku joog la yar badan oo soo sara jiraan oo yiri waddankan ayagoo shaqeysanayo 400 xamarka helayaan la yiri South Africa lacag ka badan taalo soo orod oo maanta markay meeshii yimideen goomka yaa noo jara bis goomka ha noo jara dhaayo hal biri xataa joog waa laga hal maalin xataa oo gulkashku waa jiro hore ka noqday marka niyo qofkii waddankan rajo kale oo rajale maanta oo rabo inuu waddankan ku sii noolaa karaa laakiin qofkii mustaqbal rabo waddankan inuu ku sii noolaanayo waana mahadsantahay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay saaxiib warbixinta kooban adinkana saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh insha Allah